aadan maxamed cali iyo cabdishakuur xaaji barsanji ayaa saaka ka soo muuqday markii labaad hoolka dacwad qaadista maxkamadda ciidamada qalabka sida. maxkamadda ayaa ballamisay fadhigii kan ka horreeyay in xafiiska xeer ilaalinta la yimaadaan markhaatiyaasha iyo caddeymaha kiiskan ku xusan. hay-adda dembi baarista booliska CID-da ayaa fursad loo siiyey inay sharaxaan kiisas 5 ah oo ku xusan galdacwadeedka eedeysanaha koowaad iyo kaalinta eedeysanaha labaad. bistooladii uu dilka ku geystay oo 5 ka mid ah xabadaha qasnada laga isticmaalay. xabad laga soo saaray qaybta sare ee jirkiisa. jawaan ay ku jiraan maryo uu ugu talagalay eedeysanaha inuu ku qaato qoriga marxuumka ay dileen iyo qiraarkiisa ayaa maxkamadda mar kale laga hor akhriyay. magaalada ganacsiga ee gobolka Bari Boosaaso ayuu ku dilay taliyihii gaadiidka madaxtooyada Puntland iyo ganacsade. waxaana hay'adaha amniga federaalka iyo kuwa Puntland oo iskaashanaya u suura gashay in la geeyo dhammaan goobihii uu dilka ka geystay eedeysanaha. gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha ayuu ku dilay 2 qof oo rayid ah. mid ka mid ah ciidamada xoogga dalka oo maraya gudaha suuqa labaad ee suuq Bacaad. gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha ayuu ku dilay 2 qof oo rayid ah. mid ka mid ah ciidamada xoogga dalka oo maraya gudaha suuqa labaad ee suuq Bacaad ayaa iyaga oo fulinaya dilkiisa waxa uu dhaawac ka soo gaaray eedeysanaha koowaad. xabado kale oo soo rideen dhagarqabayaashii kale ee la socday taasi oo fududeysay in ciidamada amniga ay uga daba tagaan xarun caafimaad oo eedeysanaha labaad geeyay. muumin xuseen cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa ku dheeraaday sharaxaadda kiiskan. mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh yacni falsafada uu isticmaalay iyo tababarku uu tababaran dhagarta iyo dilalka dadka aadan wuxuu isticmaalay markuu dilkan dhacayay inuu asgariga si toos uga hor yimaado salaamo dhawrhay seetahay gacanta geliyo gacanta markuu ku qabtay asgariga gacanta uu ka hayo wuxuu la soo baxay bastooladii halkaasna waxaa ku bilaabatay rasaastii lagu dilayay marxuum Axmed Cali Xuseen. xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdullaahi Buule Kame ayaa maxkamadda ka hor sheegay in aadan fikir diimeed uusan u leynin dadka balse uu ahaa hanti raadis ka shaqo bartay daadinta dhiigga dadka rayidka ah. waxuuna maxkamadda weydiistay in la mariyo ciqaab u dhigantay qodobada ay ku soo eedeeyeen. markuu damcay xabadii kuwa kala ridaayeen ayaa dhaawacay. ilaahay baa sahlay in la qabto. sidaas darteed waxaan maxkamadda sharafta la weydiisanaynaa in eedaysane aadan maxamed cali maadaama uu ku sifoobay dilaa aan naxariis lahayn oo arxan daran oo hadba dhinacii markaas u dhaqaala roon waxa uu raadinayo waa dan dhaqaale ee ma ahayn diin uu ku sifoobay dilkii marxuumiinta in lagu xukumo ciqaab dil ah oo ah qisaastii marxuumiintii uu laayay. eedaysanaha labaad cabdishakuur xaaji barsanji waxa uu ahaa ninkii qaaday ninkan dhaawiciisa. wax intaa ka badan uma hayna maxkamadda ayaan u deynaynaa go'aankiisa. wabilaahi tawfiiq. abuukaate xasan cabdulla farayare ayaa maxkamadda weydiistay in eedeysanaha koowaad lagu xukumo mag halka eedeysanaha labaad uu dalbaday in lagala noqdo eedda. hadduu dambi soogayaa waa carari lahaa. nin miskiina oo xamaasha oo xamaaligiisa iyo xooggiisa u qaraabshaysta waaye maqorofkii majarafadii wixii uu ku shaqaysanayay ayuu jawaan ku wati. mudane gudoomiye garsooryaal waxaan codsanayaa xafiiska xeer ilaalintu inuu eedda kala noqdo ninka la yidhaahdo cabdishakuur xaaji barsanji. ka hor xiritaanka fadhiga maxkamadda ayaa aadan loo ogolaaday inuu ka hadlo aragtidiisa dhageysiga kiiska kadib. maxkamadda sharafta leh ana hor jooga waxna waa geystay waxna ma geysanin. dilka lagu soo eedaynay cabdiraxmaan anaa gacanteyda ku dilay oo maalinka aakhire la soo istaajinayaa ahaata waa nin iska soo horjeednay. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda. dhageysiga garmaqalka la xiriira eedeysanayaal aadan maxamed cali iyo cabdishakuur xaaji barsanji intaas ayuu ku dhammaystiran yahay. maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto. fadhigan intaan uu xiray cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.